عقاشة odayaasha iyo waxgaradka gobolka Hawd iyo degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa ayaa jirjiray maanta ku qabteen hotel Ubaxle ee magaalada Hargeysa waxay ka hadleen isla markaana ay ka jawaabeen hadal ay sheegeen inuu ka soo yeedhay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi waxaana si isku mid ah uga hadleen inaanay marnaba fileen in hadal noocaas uu ka soo yeedho shakhsi bulshadiisa ka sugaya cod waxaana ay ku ambaliyeen wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Salebaan Ciise Axmed Kaar xagla toosiye sida uu ka shaqeeyay midnimada iyo jiritaanka qarannimada Soomaaliland iyaguna ku tilmaamay hadii taariikhda kaga jira bal dahaba waxaana hadaladaas iska daba qaatay Aqil Axmed Kayd Xayd Aqil Khadar Bacood waxaana si isku mid ah uga hadleen kana jawaab celiyeen hadalkaasi ay sheegeen inuu ka soo yeedhay murashaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ninkii la doortay la yiri musharaxa tahay xisbiga kulmiye oo isagoo laba daqiiqadood ba ahayn musharax ilmaadeeraday ku tiraabay Soomaaliland kale maxay ka filaysaa dadkii la tartamayay uu ogaa halkay mareen ayuu yiri waa ii tureen tolniimo bal waxa isagii ilmaadeeradii wada lahaayeen ay u daayeen isaga ummadda u sheegi doona taana isaga la weydiin doona berintana hadduu noqdo wax wuxuu ku dhaqmayo waxa uu sheegay ummadii reer Soomaaliland Muuse iyadoo waxaan leenahay waa guushii lama gaadhin sidoo xagla toosiye sheegay arrinku uu dambeeyaa sidiidaada mooyo dhul dhacaaga hubsan leh taasi halkaas igluun xukuumaddan maanta cimrigeedu dhacay iska daa akhru lacibkaana waxaan leeyahay meesha hadaad madaxweyne ka tanaasuleyso iskaga tagayso inaad dimuqraadiyad iyo arrin wanaagsan iyo Soomaaliland oo wada socoto ka tagtay hayday meeshii intaad madaxweyne ku sii dhoobaysato oo nin aan la dooranna adigu aad dadka u doorto inaad sidaa kaga tagtaa aad iyo aad bay ayaan darrow tahay iyadoo sidaas adigu xalay saddex leeyahay ee musharaxiinta kula ahaa waad kala reebtay labadii nin ee kuleel maleeka ahaa waad u mahadnaqday hebel iyo hebel way tanaasireen aniga ii siiyeen farxad baan ku qabaa guryahooda ugu tagi waan ku booqan kii la socday saddexaad durba waad reebtay waxaan leenahay haddaad qaab beelaad soo dhexdhigtay sifar qaldan madaxweyne dadkii oo wax ku siisay qolo wax oo inankii aad wax siisayna uu sheegay isagii ilmaadeeradii inay waxaan isku hayeen arrintaa dalka maanta dhigteen au soo saarteen miiska nin walba way dambarsan doontaa adiga iyo Muuse iyo ninka cidii ka talisay waxay u gali doontaa gurigiisa iyo godkiisa jawaabteedu degdegana way idin heli doontaa waayo maaha waxay ummadda ku tala gashay wax lagu doortay maaha oo xisbigu asaasnaa maaha inaad adiga oo wadanka si inaad khaatumada khayr ku dhamaysatay inaad khaatumada qolo iyo dhibaato iyo waxa inta dadka si dhexdhigta bambaano bilaabiina aad kaga tagtay waxa kale oo halkan uga tacsiyadeynayna wixii ku dhacay Mujaahid xagla toosiye oo aanu arkaynay in wixii uu ahaa Soomaaliland danta laga bayray ugu dambeyntiina waxa munaasabadaasi soo afmeeray Sultan Cabdilaahi Axmed waxaana hadaladiisii kamid ahaa reer Soomaaliland waxaan leeyahay reer Soomaaliland ay Muuse waxa waxa weeye rakafa qayr rafiiq nimatihiin tala laga reebay meel aan laga rabin indhaha lama sida xisbigii kulmiyu ka dhigay Muuse sida beeshana waxay leedahay dareenkeedii waa arkaysan halka uu marayo dawladda reer Soomaaliland waxaan leeyahay waa arkayseen xulashadii ku dhacday xagla toosiye Axmed Cali Bakari muqbahiya madaxa banaan ee Bulsho TV magaalada Hargeysa.